ando eysane dhaha allow diriir sokeeyo walaaddooni mayne laga dami balaayada amiin dhaha dadweyno amiin dhaha dadweyno amiin dhaha dadweyno dayartii timaadaba haddaad dooxanaysaan waa dabargo'eene aanistayno waa talo war taladaasi waa talo wanaagsane waxaan maanta maqlay bariga gobolka mudug dad isku dagaalaya oo in badani ku dhimatay in badanina ku dhaawacantay waxa ay isku laynayaanna iyaguna ma yaqaaniin cid taqaanna ma leh markay isbaaba'shaan oo nindoor badani dhintana dabeecadda aan ku dhaqaanno waa isu imaanayaanoo waxaad arkaysaa iyagoo ceeshii wada cabbaya haddana marka waxaan dhihi lahaa anuu maanta soomaaliya dagaal sokeeye waa ka dheragtee faa'iidana ma laho waa soo hubinaye alla joojiyo ilaahayna laga baqo aryaadhaha soomaaliyay dagaal sokeeyo faa'iidadiisu waa khasaare anigu waxaan dhihi lahaa how dadkan in leysku sii diiro la dabaargooyo dawmiya dadka in leysku sii diiro la dabaargooyo duqay dhagarle waa yeel isdagay dana isciilaya waa waxa dalkeenna iyo qarribay dawladnimadiiye dejiyaay colaadaha horaad ugu dulowdeen banduuqa beledkeentis yaalo lama goodlaba oo joogto bilaahi maka dhammaahayo ee calmiino hala yareeyo war waxaa la yidhi inaan ciidda laynoo gadiyin gebi ahaanteenba naxariista ee bana ka go'in samada guudkeeda guntashada colaadeed ka baxa waan gubtaanyoon war waxaa la yidhi naartiya jinnada eebbahay midiba waa nooc nabadiyo colaaduna macnaha wuu noqonayaa soomaaliyay nabad baa wanaag iyo naxariis ilaahay nima iyo barwaaqa lee soomaaliyay nabad maday isaaqow nibidanaas la nuugale ma ilowday nabadey macaaney neeca udgooney arooda reer kalemaano horta ilaaha idiin badbaadiyo balaayna allah idinka kariyo idiin baaramee baarankayga dhegaysta bilahay baraaruhu ciiddaan ka buuxshay badda iyo beriwa nimcabaa ka buuxdo xoolaheenna badanaan burcadka ka helaynaa waxaa shoo bishaaraas ilaahayna siiyey inan ku mahadnaana loo baahan yahay beenta sideedaba waa xaaraan ninkii sheegana bahdiisaa ku baaba'ayso bushi badan ay leedahay baahi badan ay leedahay balaayo badan ay leedahay balow badan iyo balaayo iyo buun lisu qaato bili'aadan badan iyo bahalo badan waa ku barakacayn waana ku baaba'ayin oo ay baranbara ka mid tahay bulac ka mid tahay mukulaal ka mid tahay booda ka mid tahay ar bili'aadan oo balaayadaa naga joojiyaan idin leeyahay aniga waryaa gabaga gooyow yaa la googoyna bulshada ha la gaarsiiyo gooyow gabaga ow tiriyey waa gabagii hurdadiidka argooyow gabayadaadii dadka dhammaa uguho kullii waa garaysto waa garwaaqsadeene adnaha kala goyn war weligay ma arkin meel dad ku dagaaleen oo baaq loogu diraay oo haddana lilaahay bulac iyo dooliyaa qaxay aryaa hore ma waadan u maqlina dhase iyo dhamiijaya dhilqaya dhuudhi iyo boodo dharka mara wixii u galee cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninkay ku yar yihiin kama dhammaa calaa kulli xaal ehelkiis dilaya allah kala qaboojiyo waxaana leenahay waa duli qabyaaladii furuq iyo daacuun waa cadow difaac iyo dugsi aad ka dhigato kaa dooxa maatada waa halaq dib jira iyo dugaag ubadka kaa cuna dangumaysileeyiyo waa dariiqa loo maro ummaddii la dumin rabo waa kaankara duqowdiyo jahli deegta noo suran waa durbaan ibliisoo daacadaad u tahay oo aad ka daba hablaysaa ummadday la deristana nabadda waa u diiddaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka diirtaa aakhirana deb naar iyo jahannamay ku dalaqseen warnimada ogolihii sacabka markaan shalay doodooda dhegaystay iyo mas-uuliyiintay u yeedheen su'aalihii ay weyddiiyeen golihii shacabkay noqon rabaan baan is idhi war waa hal maalin gudoomiye mudda ee fadhiimaa ka wadaa maya jawaariyaa ka hor muuqday war warkaa naga dhex gelinina naga suga min fadlikum nidaam war nidaamna ilaalin maysidina dhegaysa warya su'aalo aad qalbiga dadka u taabanayey ayaa shalay la weyddiiyey mas-uuliyiintii goobta fadhiyey laakiin waxaa yaab lahayd markii shalay wixii baarlamaanka ka
dhacay warbaahinta dawladdu indhaha ka qarsatay war xildhibaan fiqi waliba eray baarlamaanka marshay horeba warbaahinta dawladda dhibaka gobi sababtoo ah xildhibaanada nabad in nolol taageersan warjo basa la dhii jaryeelay antiyo aaminsiin dawladda inoo ka horjeedano mu'aaradka iyagna warjo dukum daakun halku weelayki hatta may ba dheeraad ku weelana leeya warkii baarlamaanka dhomba jiri inoo lan ernel isku aamusiin war xali waxay ahayd markii ugu horeysay oo TV qarankan ka arka xildhibaan fiqi warkii shalay ee baarlamaanka difaftira u baahnay intii ay difaftirayeen ayna la daaheen xildhibaan fiqi markii uu Facebook soo qorayna asagay ka bilaabeen warka taftir jeelka daaysan latiin tiyonay bikaus jeelka reebay war xildhibaan fiqi wuxuu yiri wariye mas'uul warkiis faafaraab kuma sameey karo xaqna uma lahan waana caburuntii soo jiri jirtay waxaas war nabadiyo nolol sidii loo helay war aan la tifaftirinaba kama yimaada xaggooda may fudaad iyo la koogya jira yaa aroota fatirkaana maxaas ahay aqal Soomaali ma la dhisaa war may waa shabaqa sigaarada lagu qabtay warka waa la faafreebay iyo lama faafreebin waxba ha ku murmunina dawladdaani waxay hirgelisay dawladihii ka horreeyay waxay hirgeli waayeen sidaad ogtihiin intii nii joogtay dawladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo tii Shariif iyo tii Xasan Sheekh wiil wariye ah inta boxor rikoor qaato buu ku soo lisi jiray 300-400 oo xubnood golayaasha dawladda ah maantana 2 bilood kadib aa wasiirka warbaahintu ka hadlaa waa dawladnimo war kalamaan miyaa xoog wadaniinta laga dhaxawuuray eebaago waran la nabad iyo nololnimo u cadeystay goorow ku biirasa ma hela anugu labadii bilooda qof hadlaakii aburinti lidiidinay naftiyeew war dawladda aan wasiir hadli karin haddaad u malayso horumar ma ahna waa dib u dhac maandeeskow meelow wasiirka hadli waayey weriye xog ka sheega war ra'iisul wasaare khayre wasiiradiisu wuxuu ka dhigaa la yiri arday macallinkii hor fadhida aroo waxa maas leeyahay horta wasiir cawad amarkii waa qaada diido ardanimadii waa diida marunba war wali eroosin sheege ardayow fartataagaada waa batay kowdhe fasalka banaanka ugu bax horta ardada ra'iisul wasaare khayre waxa ugu fiican wasiir khadiiji wasiir maarey war goodax iyo islow iyo wasiir cashuura ilowda kabiirada dugsiga kamid ah war ardada farmaajaba lafta gareen iyo waara gareen baa ugu fiican war ardada farmaajo oo maar gareen iyo qorqor gareen inta si kasta la yar lagu dari laaya war xaafiya Axmed Madoobe iyo Daniba dugsidiida naqdeen oo dugsiga waa lagu kari laayahay war Cabdiweligaas iyo Shariifba kama diin qaadin dugsigaas ardaydii binaanka bahaleeray aw jawaarinka wiinina may ka arteen war madaxaysaaqow booskaas arday fiican loo helay waana maday mursal ardada dugsiga gooyayso ma macallinka sarbida ka badiyay aroodaya okay war adeer Muuse Biixi ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheeda wuu diiday dugsiga inuu soo galo kitaab maroodi maas noqdayne war dugsiga aad sheegaysaan cadda xaashi warba kama hay meel uu ka furiyaa taamoogo Muuse Soodina mar hore loo xiis ka qaatay dugsiga war Umar Finisha hadda qada u riiqday war Salaad Cali Jeelle iyo Cali Geediyo faahiniinaha jooga dugsigan arday kale ma baahna horta Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa laga shakiyay dugsiga kale miyuu dhigtaa war Umar Cabdirashiid isku loo yihiin ma qaan dugsi cusub aan Nairobi laga furayaa bala dhaay beenta iska day Cabdullaahi Xasan dugsiga ma dhigan haddana uma socdee aryaadaha hore waxa loo yiri dugsi macallinkii daw ka qabo laga madiin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn lagu madaal gooyo nin la dilay haddaan diya la bixin laguma daawoobe war Allah u naxariistay abwaan Cabdullaahi Doodan hadda koor wuxuu yiri damiin macallinkiisii isagu hay isdacweeyeen midbada ugu leeyahay kolkii doonta aan u dhawrno ardaygii dal loo yeeriyay diminta min saaray kol hadduu tacliin doonayo deel xafidi waayay garta haddaan la daahayn isaga soo dambigu ma war waxa la yiri been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaartii caruurtu dhalana waa ka badisaa billaahi iyo waligiiba wallahi ha isku biirsado ballan fulinti waa baabacado tima ka beerma war maysiin lahaa macallin jaradheelow ardayda iskorjo busmalku waaya waa leeri aryaadaha hadda ka hor Cabdullaahi Raaga wuxuu yiri waa billaahi tallaahi iyo balisku wicmaaye beerkan ka tumaya islaan yahay bawdada dheer war ma haysaane maanta waa maalinta caalamiga musuqmaasuqa adduunka armusuq iyo maasuq ama wali la soo xiray war qaadiga qarshaha ayaa xiri kara war adeer madaxweynaha Muuse Biixi hotel musuqmaasuq lagu helay ayuu soo xiray warqada soo cabta musuqmaasuq hotelka lagu ma arkine calanka Soomaaliya laga taagay
waryaada waxaa la yidhi jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa u waaya sheeko ogow heli maayo caashaq runtana cidi yeeli mayso xaqiiqana looma baahna markuu wiil gabar siraayo amay gabar wiil sirayso waxay isdhahaan xabiibi daraaddaa baan bukooday xalan kugu soo riyooday hurdadii baan kaa dhex baaray sidaan kuu raadinayey ciddiyihii baa isiibtay magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaydnaan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina ii ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhaxaysa beentu horaa waxaa loo yidhi beec baro ama been baro war jacayl ma taqaaninana dhegayso gacma toosan leeyahay luguhu kuma qalloocdaane moobaylka tuukaama xadafiidkii soo dhacay qaraxigama kaa dila adoo jooga laamiga adigoo adeeg doonayana gaari kuma jiro war dad waalnaa tihiini markii hore markuu wiilka gabadha shukaansanayay wuxuu kala hadli jiray cuntogaradka see isku tihiin laakiin hadda wiilkiyaa la weydiiya cuntogaradka see isku tihiin war jacaylka hadda jira facebooka la iska meeshan gareeya aryaadaha waxay ahayeen ciyaalkan waalanoo geedkan noo soo hoos fadhiista xaad jacayl ka taqaaniin jacaylkii tifay dilay inta xobayna dhaawacay timirana jilbaha tiray muurataaj u geliyee la taaftii faray iyo gawaan meesha taagaa anigana itaabto waan la tiicayaaye